وسلم رونحانتي waxaan kan uga soo jeedinaa hambalyo iyo bogaadin maamulka jaamacadda City Code hormuudka Cabdi Xakiin xildhibaan dhahar yaasiin dhahar mas'uuliyiinta kale oo jaamacadda ardada quruxda badan tartamayaasha ma garanaysaa kuwa halkan ku tartamaya gudoomiyaha ardada jaamacadda City Code dhammaan ka soo qaybgalayaasha jaamacadaha kale cidayna kala joogta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن الله مركه هره waxaan ka hormarsanaya anoo ka faa'iideysanaya barnaamijkan wan man marfood oo caawa halka lagu kala guuleysay horta aabiis uu ah ayaa inoo keenay waxa inoo keenan ugu hambalyeynayna madaxweynaheena Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waatiinu degmooyinkan ku soo dhisanay waatiinu ku guuleysanay hadda cid waliba ku halaaqaysanay magaalada inaguna aynu magaranaysaa jaamacadahan uga faa'iideysanay caawa barnaamijkan quruxda badan oo hadda sida fiican u dhacay ilaa 600 oo arday ay ku codeysay hambalyeynaya gudoomiyaha waxaan kale oo kula dardaarmayaa inuu la tartamihiisa la tartamay uu kala tashado wixii barnaamij oo insha Allah ma garanayso talaabo qaadayo sababtoo awoodiisa uu arkaa inta uu codeysay waa inuu talada wax ka siyaasado ballan qaadayba waana aad baan ugu hambalyeynayaa ninka Cabdi Xakiin waxaan leeyahay la shaqay gudoomiyaha oo hore waa laga guuleystay garabkiisa labaad noqo la shaqay jaamacadda City Code waxaan leeyahay xagga siyaasadda jaamacadaha kale waa kaga dheerayseeno gudoomiyaha ururka dhalinyarada baad harateen oo ka noqday jaamacadina ka mid noqday taasna waxaan leeyahay waa hambalyan leeyahay City Code iyo gudoomiyaha Isxaaq